sida ay dawladnimada iyo caadada dawladnimada ay tahay meel kasta oo degmooyinka dawlad goboleedka koonfur galbeed ka mid ah waxay xaq u leedahay in la geeyo migrationkii hay'adda socdaalka ay degto oo qof kastoo deegaankaas ka soo jeeda uu helo xuquuqdii uu lahaa oo ahayd inuu samaysto dukumentigii baasaboorka uusan meel kale ugu safrin waqti kale uusan gelinin qarash kale uusan ku bixinin tii baan fududaynaynaa insha allahu degmooyinka dhanna waa ka suurtagelin doonaa inta degmo oo hadda diyaarka ahna waa la dhagax dhigi doonaa oo way degi doontaa hay-adda way imaan doontaa inta hadda dhammaysatay oo ceelberde ay kow ka tahayna waxaa shaqadii baa dib uga bilaaban doonta si uu u furmo ceelberde waxay kaloo muhiim u tahay oo aan maxay ahayd ay migrationka muhiim ugu tahay waxay ku taallaa xuduud dawladda walaalaha naga dariska ah ee Itoobiya waxaa socda dhaqdhaqaaqii ganacsiga waxaa socda isu socodkii dadkii isdhexmarkii intaba muhiimay u tahay in viiso laga bixiyo gelid iyo bixidda laga ogaado sida horey loo sheegayna dawladda Itoobiyana waxaan u gudbinaynaa ka codsanaynaa inay ayagana ay xafiiskan oo kala furaan si cidda ayada ka imaanaysa iyo cidda u socotaba xaggaba la isaga warhayo loo wada shaqeeyo xafiiskan uu shaqadiisa u wato taasaa muhiimadda ay tahay waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho inuu ganacsigii boodarka uu soo noqdo waxaa kaloo ka muuqata baahi badan oo ardayda ay qabaan oo ah kuraastii ay ku fariisan lahaayeen hataa inaysan yaalin buugaagtii manhajkii oo buugaagta inaysan haysanin waxyaalo badan oo baahidii waxbarashada ahayd inay bannaan tahay macallimiinta ay kulligood ku shaqaynhayaan voluntary ay dadkooda u kaalmaynhayaan macallin maamulaha runtii waa dad aad waxbarashada u jecel laakiinse baahidii ay qabeen oo dhan waxbarasho oo loo baahnaa oo dhan aan helin waxaan jecelnahay insha allahu inaan intaasoo baahi ahba dowlad goboleedka koonfur galbeed ay daboosho ay ka qabato sida ugu dhaqsaha badan ardaydan dhulka fadhida looga kiciyo oo kuraas loo suubiyo yaan ballan qaadnay haddaana suubinaynaa inta aan joogno ceelberde ayaa loo keeni doonaa kuraastii ardayda hadduu ilaaha yidhaaho buwaagtii manhajkana waa u keennay oo haddaan siinaynaa waxyaalaha kale ay u baahan yihiin iyo dayactirka iskoolkana waa dayactiraynaa waxaan kaloo jecelnahay galaaska 8aad haddii laga baxo maadaama ay tahay sanadkii ugu horreysay oo galaaska 8aad ay dhammeeyeen inay helaan dugsi sare oo ay aadaan sidii horeyba loo suubiyey waxaa jirto in degmada dugsi sare laga dhagax dhigay kii baan jecelnahay in dib loo dhisi doono oo ay heli doonaan ardayda dugsi sare waxyaalahan yaryarkii u baahan yihiin aan suubinno macallimiinta iyo maamulaha iskoolka oo aad iyo aad u mahadsan oo isxilqaamay oo deegaankoodii dadkooda iyo ardaydooda ku talagalay inay u shaqeeyaan ayaga oo aanan xaquuqdooda helin ayagana waxaan jecelnahay sida ugu dhaqsaha badan inay u helaan xaquuqdii ay lahaayeen ayagana insha allahu